aan ku bilaabay qarax sidaamin ah oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo maanta lagu weeraray injineero Turkiya oo dhisayay wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ayaa halkaasi ka dhacay sida uu faahfaahinta warkaani ku dhameystirayay wariyayga Yunis Duraan Cali. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay deegaanka Lafoole ee gobolka Shabeellada Hoose. qaraxaan oo ahaa mid aad u xoogan jugtiisana laga maqlay qayb ka mid ah deegaanada ku xiran Lafoole ayaa waxa fuliyay qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa dagaalamayaasha Al-Shabaabna ka tirsan. qaraxan ayaa si gaar ah waxa loola eegtay shaqaale Turkiya ah iyo ciidanka Haramcad oo ilaalo u ah kuwa soo dhisaya wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye oo haatan meel gabagaba ah maraysa xilli uu soo dhexgalay. inta la xaqiijiyay weerarkan waxa ku geeriyooday 2 askari oo ka tirsan ciidanka Haramcad ee booliiska Soomaaliya halka ay ku dhaawacmeen 6 kale oo 2 ka mid ah yihiin shaqaalihii Turkida ahaa ay dhisayay laamiga halka inta kalena ay yihiin ciidanka Haramcad. dadka ku dhaawacmay weerarkan waxa la keenay isbitaalka Digfeer ee Muqdisho si lagu daaweeyo waxaana goobta qaraxa uu ka dhacay muddo saacadaha hakad la geliyay isu socodka dadka iyo gaadiidka walow markii dambe dib loo furay. Iimaan Maxamed Cabdo oo ah gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda Lafoole. markana Kenya dawladda Kenya ayaa xoojinaysa dadaalka ay ku doonayso in qaramada midoobay ee Al-Shabaab ay ku darto liiska argagixisada caalamka. Xasan Maxamed Aweys ayaa warbixintaasi noo faahfaahinaya. dawladda Kenya oo si rasmi ah ugu biirtay xubinnimadeedii joogtada golaha ammaanka ee qaramada midoobay muddada 2 sano ee soo socota ayaa waxa ay qorsheynaysaa in dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ay ku darto liiska argagixisada caalamka. wakaalada wararka ee Kenya ayaa waxa ay tilmaantay in ahdaafta xukuumadda Nairobi ay tahay mid la qorsheynayo in dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab lagu daro liiska argagixisada ee qaramada midoobay taasi oo la sheegay in ay ogolaan doonto dadaalada lagu doonayo in wadamada caalamka ay kaga takhalusaan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo dagaal kala soo horjeeda xukuumadda Soomaaliya. sidoo kale waxyaabaha faa'iidada ay u leedahay in xubinnimo joogto ay ka hesho dawladda Kenya golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa kamid ah in ay xal ay u hesho muranka dhinaca badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo sidoo kale in xal laga gaaro xaaladda diblomaasiyadeed ee ka dhaxalsan Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya. xukuumadda Nairobi ayaa sidoo kale waxa ay xal ay ka gaari doontaa ayaa la yiri arrimaha dhinaca Tigray dagaalkii lagu qaaday Ethiopia taa oo muhiimad gaar ah dawladda Kenya ay siin doonto 2 sano ee soo socota oo xubinnimada joogtada ay ka haysato qaramada midoobay gaar ahaan golaha ammaanka. Kenya ayaa bishii June ee tagtay waxa ay ku guuleysatay in ay xubinnimo ay ka hesho golaha ammaanka muddada 2 sano ee soo socota ee sanadkan 2022 iyo 2022. ciidamada amniga maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka sameeyay baaritaano lagu soo qabtay 12 qof kadib markii uu qarax ka dhacay magaalada Kismaayo. isla Kismaayo waxa inoo soo waramay wariyaheena Cabdimajiid Cabaas Aadan Fantastic. warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan baaritaano saacadihii aynu soo dhaafnay ciidamada ammaanka ee dawlad goboleedka Jubbaland ay ka sameeyeen xaafadaha guud ahaan ee magaalada Kismaayo. ciidamada ammaanka ee dawlad goboleedka Jubbaland ayaa si gaar ah waxa ay baaritaanka uga sameeyeen xaafadda Olole oo ah halka marka uu ka dhacay qaraxa gaarigiisa loogu xiray Allaha u naxariistay xildhibaan Khaliif Haashin Mooge oo habeenkii xalay ahaa oo gaarigiisa loogu xiray waxyaabaha qarxa. ciidamada ammaanka ee dawlad goboleedka Jubbaland oo saacadihii aynu soo dhaafnay howlgalkan si gaar ah ugu waday isla xaafadaasi ayaa wararka aynu helayno waxa ay sheegayaan in ku dhawaad tiradooda lagu qiyaasay 100 qof ay ku soo qabteen saacadihii aynu soo dhaafnay baaritaanada ay ka sameeyeen xaafadda Olole ee magaalada Kismaayo. saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ee dawlad goboleedka Jubbaland oo horkacaya baaritaanka laga sameeyay guud ahaan xaafadaha magaalada Kismaayo oo KNN la hadlay ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in saacadaha soo socda ay warbaahin inta la wadaagi doonaan natiijada guud ahaan baaritaanada ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo. Cabdimajiid Cabaas Aadan Fantastic, KNN, Kismaayo. dawladda Ethiopia ayaa shaacisay magacyada saraakiil iyo xubno sare oo lagu soo qabtay dagaalkii jabhadda TPLF ee ka dhacay dalkaasi Ethiopia. Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa warkaasi inoo haya. wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ethiopia ayaa soo saartay liiska saraakiil ay sheegtay in laga dilay xisbiga Tigreega ee TPLF loo soo gaabiyo. saraakiishaas ayaa ku dhintay howlgalka ay dhawaan militariga Ethiopia ka fuliyeen gobolka Tigreega sida ay wasaaraddu sheegtay. warbixinta ay mas'uuliyiinta wasaaradda difaaca soo saareen ayaa lagu sheegay in ragga la dilay uu ku jiray Cornel Yemen Gabriel Michael kaasoo lagu eedeynayo inuu hogaaminayay waxay wasaaraddu ugu yeertay xasuuqay Mekara.
wasiirkii hore ee gaadiidka dowlad goboleedka Tigreega Muluk Gabrisekar ayaa isna lagu qabtay howlgalka ay sida wadajirka u fuliyeen ciidamada difaaca Itoobiya iyo booliska federaalka madaxa howlgalada ee wasaaradda difaaca Itoobiya General Tesfaye Ayelow ayaa shir jaraa'id oo u qabtay warbaahinta ku sheegay liiska saraakiisha TPLF ee lagu dilay howlgalkaasi kuwaas oo ku sheegay in markii ay sidhiib waayeen la laayay liiska ayaa waxaa ka dhex muuqday ku dhawaad 20 sarkaal oo magacyadooda la soo bandhigay dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay sii wadi doonto beegsiga ragii ka dambeeyay dagaalkii ka dhacay gobolka Tigreega kuwaas oo qaybtooda lagu sheegay in ay baxsadeen halka kuwa kalena ay yihiin kuwa xasuuqa ku dhintay sida warbaahinta gudaha dalka Itoobiya ay tabiyeen arrintan ayaa ku soo aaday xilli hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ay ku eedeeyeen dowladda Itoobiya iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in ay xasuuq wadareed ka geysteen gudaha deegaanada Tigreega kuwaas oo u baahan isla xisaabtan dhab ah waxaana xusid mudan muddada ay socdeen dagaalka gobolka Tigreega in ay ku barakaceen kumanaan dad ah kuwaas oo haatan u baahan garab istaag halka qoysas badan ay waayeen carruurtoodii waalidkoodii iyo wiilashoodii kuwaas oo ku baxay dagaalka sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen hay'adaha xuquuqul aadanaha ka shaqeeya markana Shabeellada Dhexe maamulka degmada Jowhar ayaa yeeshay kulan looga hadlayay ammaanka guud ee magaaladaasi kadib falal amni darro oo maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanaya gudaha magaaladaasi Bashiir Cali Dar ayaa noo soo warramay kulankan ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlayay amniga magaalada Jowhar kaas oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka degmada Jowhar waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka degmada inta badanna looga hadlayay xaaladaha amni darro oo muddooyinkii la soo dhaafay soo kordhayay ee ka dhacayay gudaha magaalada Jowhar iyo howlgallada ciidamada ay ka sameynayaan xaafadaha magaalada kulankan amniga looga hadlayay ayaa mas'uuliyiinta maamulka degmada Jowhar waxa ay xoog saareen sidii shacabka ku dhaqan degmada Jowhar ay ciidamada amniga sugayo ay gacan ka sii lahaayeen inta badan amaro ay ku soo rogeen magaalada Jowhar taasoo ah in milkiilayaasha guryaha xaafadaha magaalada Jowhar aysan ka kireenin cideen aqoonin taasina ay sheegeen cidii ku dhaqaaqdo tallaabo ay ka qaadi doonaan mas'uul ka tirsan maamulka degmada Jowhar oo lagu magacaabo Ismaan Xuseen Umar Ismaan Gaab ayaa la hadlay saxaafadda shirka kadib haloo qaato amarka sidoo yahay gurigaada qofka ka kireysanayso oo ku xalaasha ah adiga ogow waxaa jiray macnaha anigu diin ahaan waxaan aaminsanahay waxa taqaan guri waxa taqaan ku dhalanay marka walaal qof taqaan gurigaada tagso gurigaada ha ugu dhimanin han ugu dhibaatoobin $200 waxaan $8 waa noocaasa ummadan ha u baabicin ha u dhibaatayn ma taqaan fiir ma la yaqaan qof guriga la soo dajisay ma aqaan lagu leeyahay war ma aqaan maxay tahay aniga bisho ay ijaarku ay san jiray waaye meeqa ijaarka laga guuray waaye meeqa laga guuray ijaar maanul baxfiiska xaafadda dacwo noogu timaado ma taqaan qofka diilina ma aqaan ku leeyahay qofki waa guuray haduu roo xaafad meel kale ka tagay laf xuma u shidneed waa dansana laf kale u yeelanaba marka waxaan rabaa marka waxa taqaan guuri waxa taqaan ku dhalanay joogtaa guriga lambar laga waayo waxa loo qaadan karaa guri dan kale laga lahaay waaye amniga lagu soo xaqiijinaya amnigan ku saxanaynaa waa isla goobta markaas dhibka uu ka dhacay number hebel ku dhigan aan leeyahay number hebelka isla marka ciidamada amniga gaaray goobtaas war ciidamadii ku soo jeeday way maalin ku diyaarsan oo dhiigoodi iyo dhaxanta isku taagan dhiigoodan ku horay inaad adiga dhibaatayso waa dhibaato weyn waay